halkani waa tuulo ku taala xadka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine. Ninkan iyo xaaskiisa waxay ku nool yihiin gurigan cidlada ah. Waana family aad isugu faraxsan. Ninkan waxa lagu magacaabaa Makola, waxa uu soo qaatay baaskilkii waana macallin iskuul oo ku yaala tuulada. Waxa uu yimi iskoolkii uu macallinka ka ahaa isagoo baaskil wata. Laakiin si kadis ayuu wuxuu ku arkayaa TV-gan halkan ka daar oo ka baxayo warku. Ciidamadii Ruushka ayaa soo weeraray tuulo u dhow xad ilaa ay dadkii ku noolaayeen ay baabi'iyeen. Makola waa uu fiirsanaya ilaa uu markii dambe xiisadiisii galay. Ardaygan halkan fadhiya waxa uu markasta dhibaa macalinkiisa iyo sidoo kale ardayda joogta galaaska isagoo markaasi ku tuuraya waraaqo. Wiilkan ay ku tuuray waraaqad ilaa markii dambe ku qaydiyay kadibna waxa uu sheegay macalinkii ayaa u imaanay waxa uu ku leeyahay mardama ha sameyn khaladkan oo kale ilaa markii dambe sabuuradii xanjo ku tuuray kadibna macalinkii waa uu xanaaqaya ilaa uu ardaygan u sheegay yiraahdo wiilkan ayaa ku tuuray sabuurada xanjada isla markii uu soo jeesanay isagoo aad xanaaqsan waxa uu ku leeyahay galaaska ka bax isagoo saabinaya ayuu galaaska ka baxaya. Makola gurigiisa ayuu ku soo laabtay kadibna xaaskiisa ayaa u sheegay inuu ur leedahay ilaa markii dambe farxad darteed uu qayliyay aad ayuu faraxsan yahay waana markii ugu horeysay oo aabbo noqdo. isaga iyo xaaskiisa halkan ayay ku damaashaadayaan farxadda darteed waxa ayna qaadanayaan jawi farxadeed. Makola subaxnimadii ayuu soo qaatay mar kale baaskilkiisa si uu aado shaqadiisii maalin lahayd kadibna xaaskiisa ayuu halkan ku macasalaameynaya ilaa ay baaskilkii u turtay. halkan Makola uu soo dhaqaaqay shaqadiisii ilaa markii dambe arkay askartan halkan taagan kadibna uu shakiyay waxa uu isleeyahay askartii Ukraine ma waxa laga bedelay uniformkii balse waa askar Russian oo qabsaday tuuladii oo dhan. laakiin ninkani war ma hayo. gudaha ayuu iskoolkii soo galaya ilaa markii dambe arkay iskoolkii faaruqa. TV-gan ayuu fiirinaya waxa uu arkaya wararka oo sheegaya in magaaladii dhan ay la wareegeen ciidamada Ruushka calankoodiina ay ka taagteen. isla markii uu soo cararaya waxa uu ogaanayay in askartii halka taagneed ahaayeen ciidamada Ruushka. waxa uu baqay xaaskiisa inay halis ku jirto. isla markii baaskilka ayuu soo qaatay waxa uu yimi halkan laakiin gaarigan ayaa halkan taagay ilaa markii dambe ku soo orday ninkan askariga ah. dhulka ayuu dhigtay xaaskiisana halkan ayaa lagu qaraacaya. isla markiiba waa uu qeynaya Makola waxa uu ku leeyahay xaaskaygu waxa ay leedahay uur laakiin ma dhageysanayaan waxa ay jir dilayaan isagii. xaaskiisa ayaa ka baryayay ilaa markii dambe askarigan laad caloosha kaga dhuftay gabadhii. isla markiiba waa uu qeynaya isagoo ooyay waxa uu ku leeyahay xaaskayga daaya uur ayay leedahay laakiin ma dhageysanayaan. labadii askari mid kamid ah ayaa gudaha guriga galaya waxa uu isku dayayaa inuu guriga baarto. waa uu fiirinaya guriga alaabta taalo oo dhan kadibna warqadan ayuu dabka ku shidaya waxa uu gubay gurigii oo dhan. gurigii ololaya ayuu ka soo baxaya askarigan isagoo faajoonaya. waa iska tageen ilaa ay markii dambe dhagax kala daba tagtay balse xabad ayay ku dhufteen. halkaas ayay ku dhimatay Makola xaaskiisii. isagoo aan tabar hayn ayuu soo gurguranaya waxa uu imaanaya xaaskiisii ilaa ay markii dambe askartii Ruushka isaga tageen meesha. gabadhii oo meyd ayuu ku dul ooynaya. halkan ayay uga bilaabatay murugadiisii maadaama xaaskiisii iyo ilmihiisii la dilay gurigii uu degnaana la gubay. isla markiiba ciidamada Ukraine ayaa u imaanaya waxayna fiirinayaan xaaladda iyo wixii meesha ka dhacay. laakiin Makola waxa uu la jiifaa xaaskiisii oo meyd ah ilaa markii dambe labadan askari ay qodeen halkan si ay ugu aasaan gabadhan meydka ah. Makola waxa uu aasaya xaaskiisii ilaa uu godkii ku riday. aad ayuu murugsan yahay waxa uuna ku jiraa xaaladdan la qiyaasi karin. isla markiiba way ka soo saarayaan godkii si ciidda loogu rago. halkaas ayay ku aaseen. Makola gaarigan ayaa la soo saaray. ciidamadii Ukrainiyaankaana waa ay soo qaadeen waxayna keenayaan saldhigan militariga. askarigan ayaa u sheegaya sarkaalka ka sareeyay inay wadaan nin doonaya inuu ciidanka ku biiro. Makola waxa uu gacmaha la galaya qorigan furfuran ilaa ay markii dambe arkeen wayna ku soo cararayaan. sarkaalka ayaa weydiinaya sababta uu ciidanka ugu biiraya Makola laakiin waxa uu sheegaya historygiisii oo dhan iyo in xaaskiisii dileen laba askari oo sniper ah. isla markiiba waa uu soo dhaweynaya waxa uu ku leeyahay ku soo biir ciidanka. Makola tababarkii ayuu ku jiraa waxaana u bilaabmay tababarkii argudashada. waxa uu doonayaa kaliya inuu xaaskiisii u soo aaro. trainingkii koowaad ayuu qaadanaya kadibna waxa la yiri qorigan furfuran isku xir. isla markiiba sarkaalka ayaa soo istaagaya waxa uu arkayaa in Makola ay gacantiisa aad u culus tahay waxa uu ku oranayaa adigu ma noqon doontid askari wanaagsan. maalinnimadii xigtay waxa uu Makola soo galaya xaruntii tababarka waxa uu qaadanaya tababarka uu ka adeeg yahay iyo xeelad kasta uu isku difaaci karo. mar kale Makola waxa uu isku xirayaa qorigii isagoo isku dayay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan qorigan iskugu xirxiro. halkan ayay yimaadeen. Makola waxa uu leeyahay waxaan rabaa inaan noqdo askari sniper ah laakiin askartii dhammaan waa ay ku qoslaysaa. waxa uu ku leeyahay ninka sarkaalka ah qoriga sida loo xiro ma taqaanid. haddii aad qorigan isku xirxirtid waqtigii loogu talagalay waxaan ka ballan qaadi doonaa in lagu daro guutada sniperka. isla markiiba waa uu aqbalaya waxaana lagu soo dhaweynayaa qorigii. isla markiiba indhihii ayuu iska xiraya. ninkan askarigaana waxa uu qabanayaa saacad dhammaantood waa ay fiirsanayaan. isla markiiba saacadii ayaa loo bilaabay. Makolana waxa uu isku dayayaa inuu si dhaqso badan uu qoriga u xirxiro. isla markiiba qorigii ayuu furfuraya waa uu isku xirxirayaa. saacadii ayuu istaajiyay sarkaalkii waxa uu fiirinayaa Makola dhammaantood waa ay saacbinayaan. 20 second ayuu qorigii ku furfuray kuna xirxiray. mana jiro askari halkan jooga oo sameeyay arrintaas. waa ay farxayaan waa inay dhiirigelinayaan. gaarigan ayaa lagu soo qaaday waxaana la keenay xaruntii ay ku qaadan lahaayeen tababarka sniperka. halkan ayuu uga bilaabanayaa tababarkii. dhammaan askartii oo dhan waxa loo qaybinayaa qoryahan oo ah qoryo sniper ah ilaa uu Makola soo istaagay. isla markiiba askarigii waxa uu dhibay qorigan rifle-ka ah waxa uu ku leeyahay askartii ugu horeysay waxa siisay qoryo sniper oo casri ah maxay tahay sababta aad qorigan olliga ay siisay ilaa uu markii dambe ku xanaaqay kuna yiri meesha
iskaga tag. Makoolana aad ayuu murugaysan yahay, laakiin wax kasta waxa kala weyn hadafkiisa. Qorigiisa ayuu soo qaadanayaa ilaa askartan ku qosqoslaan. Tababarkii sniperka ayay qaadanayaan maalintii koowaad. Askarigan ayaa u imaanaya waxa uuna mid kasta agtiisa ku dhufanaya xabad. Lamana rabo inuu qof kamid ah isdhaqaajiyo ilaa markii dambe Makoola ay ku agdhufatay, laakiin ma uusan dhaqaaqin. Tababarkii shiishka ayuu siinayaa ninkan sarkaalka ah, waxaana laga qarinayaa iskoobta. Dhammaantood waa ay shiishayaan laakiin waa ay la weynayaan ilaa markii dambe ninkii sarkaalka ah uu diliyay Makoola, waxa uuna ka qarinayaa iskoobta. waxa uu shishay isagoo aan u jeedin targetkii loo baahnaa. Markale tababar habeennimo ayay qaadanayaan. Askariganna waxa uu ridayaa bulleerkan, kadibna waxaa la rabaa in mid kasta uu shisho meeshan mugdiga ah ee targetku yaallo. Dhammaantood xabadda ayay tuurayaan ilaa uu markii dambe Makoola ku guulaystay noqdayna askarigii shishay. waxa uuna noqday askariga ugu xariifsan ee ku jira guutadan sniperka ah. subaxnimadii ayaa la gaaray. sarkaalkanna waxa uu dhibayaa Makoola mishinkiisii koowaad, waana in la fuliyaa mishinkan. gaarigan ayay soo raacayaan si mishinkoodii u fuliyaan. ninkan ayaa u sharaxaya maabka waxa uuna ku leeyahay koox halkan joogta ayaa dhigatay checkpointi, waana ciidamadii raashka. duurkan cidlada ayay u galayaan si ay u toogtaan dhammaantood. qoryahoodii ayay diyaarsadeen, waxa ayna diiradda ku hayaan ciidamadii raashka ilaa markii dambe sarkaalkoodii uu amray in hal mar madaxa laga wada toogto ciidamada raashiyaanka ee halkan jooga. waxa ay ka wada toogteen dhammaantood madaxa. mishinkoodii waa ay ku guulaysteen, waxayna soo qaateen baabuurtoodii iyagoo dib ugu soo laabtay saldhigoodii. aad ayuu faraxsan yahay Makoola maadaama uu soo dilay askari raashiyaan ah. subaxnimadii kale waxaa loo diray mishin kale oo aad u halis badan. halkan ayay miinooyin dhigayaan, waxaana soo maraya kayntan ciidamo raashiyaan ah. xawska ayuu u jiifsaday Makoola iyo tiimkiisii si ay u laayaan marka ay miinadu la qaraxdo. ciidamadii raashiyaanka hawa ay yimaadeen. Makoola waxa uu diiraddu ka arkayaa in mid kamid ah ardaydiisii uu ku jira ciidamada raashka. waa uu isku naxayaa, waxa uuna arkayaa in ardaygiisii uu ku jira ciidamada raashka. geedkan ayaa xabad lagu dhufanaya, waxaana qarxaysa miinadii. dhammaantoodna halkaas ayay ku baabeen ciidamadii raashiyaanka ahaa. Makoolana waxa uu arkay ardaygiisii oo ku dhintay halkan. mar kale Makoola iyo tiimkiisii waxa uu askarigani u dhiibayaa mishinkoodii labaad si ay halkan uga soo fuliyaan. waana ciidamo raashiyaan ah oo checkpointi kala dhigtay ilaa uu markii dambe Makoola diiradda ku qabtay halka ay joogaan ciidamada raashiyaanku. waxa uuna arkay mid kamid ah labadii askari ee dilay xaaskiisii. waa uu isku naxayaa Makoola, xaaladiisii oo dhan waa isbedeshay. waxa uu diiradda saartay ninkii xaaskiisii dilay ilaa uu qoriga cabaystay. ninkan ayaa arkaya waxa uuna ku leeyahay maxaa rabtaa inaad samaysid, balse uma uusan joojin. qoriga ayuu xabadda gashtay ilaa uu madaxa ku dhuftay, balse nasiib darro nin kale oo raashiyaan oo sniper halkan ku jira ayaa helay targetkoodii. halkan waxaa rafanaya askarigii dilay Makoola xaaskiisii, waxayna kaga dhacday xabaddii dhuunta. ninkii raashiyaanka waxa uu ogaaday meesha ay joogaan ciidamada Ukraine-ku, waxa uuna doonayaa inuu mid mid u toogto ilaa uu markii dambe askari kamid ah ciidamada Ukraine-ka waxbad ku dhuftay. dhammaantoodna way khalkhalayaan, way kala cararayaan, mana garanayaan jihada laga jiro. dib ayay ugu soo laabteen xaruntoodii. askariganna waxa uu ku dhintay howlgalka, waxaana dilay askarigii raashiyaanka ahaa ee sniperka watay. dhammaantood aad ayay u murugsan yihiin, waxayna ka xun yihiin saaxiibkooda uu dhintay, waana khaladkii uu sameeyey Makoola. mar kale Makoola waxaa loo soo diray sniperadan raashiyaanka ee ku dhex jira qashinka dhexdooda. waxa ay cabaysteen qoryahoodii. Makoola iyo tiimkiisii sniperka ahana waxa ay ku jiraan kaynta. Makoola waxa uu arkay isagoo diiradda ku haya qashinkan qof dhaqdhaqaaqaya ilaa uu madaxa ku dhuftay. halkaas ayuuna ku dhintay askarigii raashiyaanka ahaa, balse askari kale oo raashiyaan ayaa Makoola gacanta kaga dhuftay xabad. dib ayuu ugu soo laabtay saldhigii. mar kale Makoola dib ayuu qorigiisii usoo qaatay, waxa uuna isku diyaarinayaa howlgalkiisii ugu dambeeyey. gaarigiisa ayuu soo qaatay, waxa uuna yimi xaruntii. ninkan sarkaalka ayaa waxa uu sharaxayaa in loo baahan yahay in la dilo askari lagu magacaabo Siri, waana askariga ugu khatarsan ciidamada sniperka ee raashiyaanka ah. waxa uu muuqaala ka duubaa dadka uu dilaya, kadibna waxa uu soo dhigaa baraha bulshada. Makoola iyo tiimkiisi waxay yimaadeen goobtii loogu diray mishinka, waana inay dilaan dhammaan askarta raashiyaanka ee halkan jooga. waxaana ugu weyn Siri oo ah askari sniperista ah, lambar 1 u qaatay ciidamada raashka. askar badan oo Ukraine dilay. Makoola waxa loo xilsaaray inuu Siri dilo. waxa uu soo galayaa saldhigii ciidamada raashiyaanka. baaskooladiisa ayuu la soo baxay, waxa uu doonayaa in laba askari halkan ku dilo. Makoola halkan ayuu ku dhuumanayaa ilaa uu markii dambe halkan ugu soo galay labadan askari ee raashiyaanka ah. baaskoolada ayuu ku qabanayaa ilaa uu markii dambe labadoodiiba ka takhalusay, halkaasna ay ku dhinteen. halkan waxaa saaran askarigii ugu khatarsanaa ciidamada raashka ee u qaabilsan sniperka, waana Siri. gurigan ayuu ku jiraa, waxa uuna ugaarsanayaa ciidamada Ukraine-ka. laakiin Makoola ayaa gudaha ugu galay, waxa uuna iska furay albaabka. Siri ma oga waxa ka socda xagga hoose. Makoola waxa uu soo qaatay baaskooladiisa isagoo jaanjartan soo raacay si uu u dilo Siri. waa uu ogyahay Siri halka uu joogo. Siri ayaa soo degaya, isla markiiba Makoola waa uu arkaya, waa uu ka dhuumanayaa. Siri waxa uu imaanayaa xagga sare ee guriga ilaa uu arkay saaxiibkiisa oo la dilay. isla markiiba telefoon ayuu dirayaa. dib ayuu ugu soo laabanayaa positionkiisii ilaa uu markii dambe xagga sare kaga yimi Makoola. si xunna uu dilay, madaxa ayuu ka geliyey mindi. halkaas ayuu ku dhintay sniperkii ugu khatarsanaa ciidamada raashka. Makoola mishinkiisa waa uu soo gutay, waxa uuna yimi gurigiisii hore ayuu dib ugu soo laabtay. waxa uuna soo boqday qabriga xaaskiisii isagoo duldhigay ubaxan. daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynay.
waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Fadlan muuqaalka like saar haddii aad nagu cusub tahayna subscribe noo saar channelka. Tan iyo inta iskaga imaan doona muuqaalka xiga waxaan idinkaga tagi doonaa sidaas iyo nabadgelyo.